waxaa muhiim ah cid kastoo muslimana loo baahan yahay inuu isweydiiyo naftiisana ay ku noqnoqoto qiyaamadu waa goorma qiyaamada dhicitaankeeda waa goorma waa u tagi doonaa jawaab ma leh laakiin waxa weeye qiyaamada iyo inay imaanayso iyo inuu dhimanayo iyo in adduunkani dhammaanayo iyo inay nololi dambayso iyo in ilaahay loo tagi doono iyo in la isla xisaabtami doono mar walba inay qalbigaaga ku weyn tahay oo xusuusnaato saas daradeed baa su'aalaha saxaabada waxa ku badnaa iyo ardadii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inay weydiiyaan qiyaamada iyo wax ku saabsan maxaa yeelay adduunkan iyo kownkan wax sugayo soo socda oo qiyaamada ka weyni ma jiro as-saa'atu adha wa amar daahiyo iyo musiibo ka weyn qiyaamada oo soo socota ma jirto saas daradeed inaad aad isu weydiiso oo xaalkaaga is warsato oo macad ku dambayn doontaa aad bay muhiim u tahay Allah tabaaraka wa ta'ala anbiyadiisa qaar kamida Ibrahim iyo Isxaaq iyo Yaqub wuxuu ku amaanay in ay arrin khaas ah oo gooni ah oo ah inay daarta aakhiro xusuustaan xusuusta daarta aakhiro waxa ka dhalanaya saameyn weyn bay waxay ku yeelanaysaa ruuxa noloshiisa qodobkaasi marka waa muhiim adduunyadu yeysan kula tagin yeyna ku mashquulinin yeyna ku halmaansiinin xusuusteeda badi faa'iidada labaad ee xadiiska ku jirta waxay tahay qiyaamada xilligay dhacayso cilmigeeda ilaahay baa khaas la ah nabi maxamed waa ka jawaabi kari waayay sallallahu alayhi wa alihi wasallam isla su'aashaasa nabiga waxa weydiiyay malakul jibriil asagoo nabigu saxaabada la fadhiyo malakul jibriil oo nin bini aadana iska soo dhigo isu soo ekaysiiyay ayaa su'aalo dhowr oo nabigu weydiiyay waxa kamid ahayd qiyaamadu waa goorma maxamedow iiga waran nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam al mas'uulu anha bi'a'lam min as-sa'il kan la weydiinayo iyo ka weydiinaya qiyaamadu goortay dhacaysa waa ka siman yihiin waxna kama oga anuguna waxba ka garan maayo adna wax ka garan mayso jibriil ma garanayo nabi maxamedna ma garanayo cilmigeedana ilaahay buu khaas u yahay goortay dhacaysa say u dhacayso laakiin waxa laga waramay dhacdadaasi weyn ee adduunka gilgili doonta siday u dhacayso waxba la inaga siiyay laakiin xilligay dhacayso ilaahay baa og tabaaraka wa ta'ala faa'iidada saddexaadi waxay tahay nabigu sallallahu alayhi wasallam taa markuu ka leexiyay acraabiga su'aashu meeshay ku haboonayd buu u tilmaamay wuxuu ku yiri maxaad u diyaarsatay buu uga jawaabay waana su'aashu meesha la doonayo inay gasho goormay dhacaysaa way u dhici doontaa ama qiyaamada yar ha noqoto ama taweyn ha noqoto qiyaamada yar ruux walba geeridiisa maalintuu geeriyoodo qiyaamadiisii way dhacday maxaad sugi hadday cadaab ahayd kugu bilaabay hadday barwaaqiyo janno ahaydna kugu bilaabatay qiyaamo adduunka ka dhacdo baabi'isa taadii yarayd baaba ka soo horraysa way dhici waana hadda tii weyneed ee adduunkoo dhan rogaysayna way soo socotaa wayna imaan saas daraaddeed goorma waxaa kaaga muhiimsan inaad weydiiso maxaa kuu diyaarsan kulli way imaan laakiin maxaa kuu diyaara maxaad haysaa maxaad la qaabili maxaad u hormarsatay saas daraaddeed baa rabbigeen tabaaraka wa ta'ala mu'miniinta wuxuu amray mu'miniinow ilaahay ka baqa naf walbana ha fiiriso waxay berri u hormarsatay oo qiyaamada ah maxaa ka horeeya maxaa yaala maxaa kuu diyaarsan isweydii maxaa cibaado ah maxaa camal ah maxaa wanaaga maxaa khayra maxaa gabood fal war maxaa kuu yaala taasuu nabigu u jeediyay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waana su'aashu meesha la doonayo inay marto faa'iidada afraadi waxay tahay qisada aynu ka faa'iideysanayno ruuxa bini aadamka muslimka si kasto u dadaal badan yahay inuu naftiisa iyo amalkiisa xaqiro inuu isyaso hoos isu dhigo isla weynaanin is afuufin isbumbuurinin amalkaagu kula weynaanin nabigu markuu ku yiri ninka saxaabiga maxaa ku diyaarsan wuxuu yiri waxba riwaayad kale wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay wax weyn ima diyaarsan
riwaayo kale waxay leedahay wuxuu yidhi rasuulka ilaahay waxaan isku ammaano ma hayo soom badan iyo salaad badan iyo wax badan ma hayo ninku waa saxaabi inaad nabi maxamed aragtay oo la kulantood rumaysay oo arday u noqotay ba amal loo dhiga aan lahayn wax walba ka muhiimsan haddana maca dalika wuxuu rasuulka ilaahay wax weyn ma hayo nacam waxay waxa aad samaynaysaa su'aalo badan baa ku wareegsan wixii laga rabay ma yahay sidii lagaaga rabay ma u qabatay nicmadii ilaahay ma u dhigmaa waxyaalo badan baa ku wareegsan waxoogaa yarood samaysay marka inuu kula weynaadood isbuunbuunisood is-afuuftaay maya allah wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala naftiinna ha ammaanina ilaahay baa idin ogsoon waxba diintaada iyo camalkaaga ilaahay uga warramay isaga kaaga xogaalsan naftaada saas daraaddeed baa saxaabigu wuxuu yidhi waxa ma haya rasuulka ilaahay hal khaslo oo faa'iidada shanaad ah ilaahay iyo rasuulkiisaan jeclahay ma sahlana inaad ilaahay jeclaato ood rasuulkiisa jeclaato ma sahlana saas daraaddeed baa nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi arrintaasi weyneeyey wuxuu ku yidhi cidda aad jeceshahay baad la meel tahay saxaabadu arrintii waa ku farxeen annaguna ma la qabnaa rasuulka ilaahay haa waxay ku farxeen oo kale taasaa ugu weyneed islaamnimo kadib waxay ku farxeen maxaa yeelay cidday jecel yihiin bay garanayaan allah bay jecel yihiin rasuulkiisay jecel yihiin jacaylkooduna sheegasho ma ahee xoolahoodii naftoodii wakhtigoodii waxay heli kareen bay ilaahay iyo rasuulkiisa siiyeen way bixiyeen haddayna ilaahay rasuulkiisa jeclayn dhamayna bixiyeen sidaas daraaddeed bay ugu farxeen qaacidadu waxay tahay marka waa faa'iidada muhiimka ah jacaylka adiga yaa jeceshahay isweydii haddaad jeceshahay allah rasuulkiisa saxaabadii nebi maxamed mu'miniinta dadka jidka haya haddaad jeceshahay ood ayaga la jirto ayagaad la meel tahay maalinta qiyaamada haddaad kuwaa ka jirto gaalada iyo acdaada ilaahay jecesha munaafiqiinta jecesha calmaaniyiinta jecesha diin laawayaasha jecesha fujaarta aad jeceshahayna ku talagal maalinta qiyaamada kuwa umbaad la meel noqon doontaa qaacidadaasuu nabigu dhigay salawaatu rabbi wasalaamu calayh isweydii marka yaad jeceshahay yaad la jirtaa yaa qalbigaagu la jiraa yaad rabtaa yaad jeceshahay isweydii